aan taaganahay waa wadada isku xirta stationka iyo waliba Alxarameyn oo ah wadooyinka magaalada Cabudwa waxa maalmihii u dambeeyay si isxilqaana wadadani wada jay ah ka dhigay bulshada wadadani isticmaasha iyo kuwa degan ayadoona ay muujiyeen isxilqaan iyo waliba isku tashi bulsho wadadan oo gaaraysa 300 mitir ayaa bulshadu u kacday ayadoona maanta ay ka muuqato isbedelka muujinaya dhismaheeda iyo waliba sida wadadan ayaa markii hore ahayd mid godad iyo waliba dhibaato badan ay ku qabeen gaadiidku xilliga roobka iyo waliba xilliyada kale haddaba qaar kamid ah gaadiidleyda wadadan isticmaasha iyo bulshada oo aan mikrofoonka la dhex qaadnay ayaa waxay ka warbixiyeen faa'iidada ay leedahay wadadan iyo markii hore sida ay ahayd halka aan taaganahay waa wadada isku xiriirisa Alxarameyn iyo garoonka diyaaradaha degmada Cabudwa saad aragtaan wadadan waxa ka socda dhisme ruux badan dhismahaas oo isxilqaan ay sameynayaan dadka degan degmada Cabudwa gaar ahaan xaafadan dheer isku xirta garoonka Cabudwa iyo Alxarameyn waa bogaadinayna dadka dhismahan sameeyay waana soo dhaweynaynaa waxaan shacabka meeshan ku shaqeysta ama mara maadaama aad kamid tahay isbedelka aad dareenteen inta shayga la saaray balka waxaan dareennay isbedel weyn sida aragtay meeshan waxaan jirtaa meel godad ah oo dhaadheer baabuurta ay dhib ku tahay waxaan dareemaynaa wada qurux badan iyo jawi fiican baan dareemaynaa waxaan u aragnaa arrintan waa soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol haddaan nahay dadka degan xaafadan wadadan markii hore aad baan waxaan ugu qabnay dib haddaan nahay gaadiidleyda magaalada ka shaqeysata aad baan dib ugu qabnay bahlo iyo haadaamo iyo wax walba bay isugu jidhay si dhibahan ku mari jirnay hadda laakiin ma sha Allah aad baan looga shaqeeyay waan u mahad celinaynaa wixii ka shaqeeyay oo macnaha hawshaas aad isugu xilqaamay aad baan ugu mahadnaqaynaa waatay wadadan sida kuleyba ka muuqata bulshada wadadan degan baa isqaan ku dhistay maxaad ku dhiirigelin ka dheed wadooyinka kale iyo bulshooyinka degan bulshada degmada Cabudwa degan waxaan ku dhiirigelin lahaa dhammaan wadooyinka dhexmara magaalada bilicdeeda inay kor u qaadaan oo qarashka ay dhiibaan wadadu waxa weey markii hore waxay ahayd meel eberkeeda ah oo burbursan bay ahayd wadada maadaama ay burbursan tahay meel godan bay ahayd godad bay ahayd biyo fariisi bay ahayd meel dib gaadiidka iyo dadka soconaya labaduba ay ku qabaan bay ahayd laakiin hadda waxa muuqata wado la dhisay oo laga shaqeeyay oo dadkii ka shaqeynayay oo dhalinyarada aha ama ganacsatada ama dadkii isxilqaamay wadada dadkeena u dhisaan marka waxaan dhihi lahaa inay sii kordhiyaan oo sii wadaan si magaaladu ay bilicdeeda iyo wadooyinka dhismaheedu ay u hagaagaan waa tahay marka maxaad ku dhiirigelin kartaa bulshada kale si isxilqaan ahaan ay ugu dhistaan wadooyinka waxaan ku dhiirigelin lahaa dhalinyarada iyo ganacsatada iyo bulshada Soomaaliyeed ama dal ha joogeen ama dabad ha joogeen inay ka qayb qaataan si loo dhiso magaalada wadooyinkeeda oo dhan arrintaana ay ku sii dhiiradaan laguna gacan siiyo dadka dhalinyarada ka shaqeynaya wadada isku tashiga bulsho ee bulshada degmada Cabudwa ay ku dhiseen wadadani 300 mitir ah ayaa waxa ay muujinaysaa sida ay bulshada degmadani ugu taagan yihiin inay si wada jir ah ugu dhistaan goobaha danta guud ee degmadani ayadoona aysan jirin wax maamul iyo waliba dawlad dhexe ee ka qayb qaata dhismooyinka danta guud ee inta badan ay bulshada degmadani caanka ku yihiin dib u dhiskooda Ahmad Bashiir Soomaad Xilif telefishinka caalamiga ah soo yaal degmada Cabudwa gobolka Galgaduud